dagaal culus ayaa ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland saaka salaadii hore waxa uu ku dhaxmaray deegaanka Tukaraqa halkaas oo hore dagaal ugu dhaxmaray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Ciise Axmed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in khasaare weyn gaarsiiyeen ciidamada maamulka Puntland soo qabteen maxaabiis kii gardarada ahaa oo qaawna oo saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya Puntland saaka markay waqtigu ahayd 5 barkii bay laba aag dagaalka weerarka soo qaadeen labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aag ba ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa si mugle bay isaga caabiyeen dagaalkii bilaamay 5 barkii wuxuu soo gabagabay abaari 10 barkii labada aag basif ba xal laba loogu jabiyay waxa la gaaray beesaskoodii ay fadhiyeen taliska waayaga gud qaboobe waa la dhaafay marka halka la marayay xabadii joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca Tukaraq 7 kilomitir difaaca ka horeeya degmada Tukaraq khasaar waa jira khasaaruhu dagaaladu dhaco meel khasaar ko labada dhinac baa khasaar waa jira xogtii rasmiga ahayd wali maanu soo ururin laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiis ba laga hayo labadaasba waa confirm waxa kale oo ina jira ciidamadooda khaaska soo tababaran oo ciidamada badda marinka oo loo yaqaan Saarsan iyana ciid dagaalka ku jireen iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid wasiirka wasaaradda Cabdiraxmaan Gurbar waa qoys isaguna geestiisa ka hadlay shirkaasi jirayd ayaa sheegay in marnaba ciidamada Somaliland duulaan ku hayn maamulka Puntland ay difaaciyeen xuduudooda qura sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaan Somaliland nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha Ramadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadeysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waanu iska celinay nabadgelyo kooda noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaar u nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Somaliland ma u adkaysan doonaan oo mana dul qaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dawladda Soomaaliya xuduudaha Somaliland ilaa hadda ee ka dhashay dagaalkaasi dhexmaray ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka Puntland lama oga Mukhtar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa.